shirkadda xabkaha iyo Franke ee Asli Maydi ayaa lacag ay ugu tala gashay in lagu goneeyo macallimiin wax ka dhiga dugsiga sare iyo hoose ee degmada Garada kuwaas oo si mutadawacnimo ah muddooyin sanada wax uga dhigay dugsigan ayaa waxay ku wareejisay shirkaddu lacagtan ay ugu tala gashay gidoonka waxbarashada ee degmada Garada iyadoo shirkadda Asli Maydi ay sanadihii dambe horumar la taaban karo ay ku soo kordhisay gobolkan Sanaag isla markaana ay wax weyn ka qabatay baahiyaadka aasaasiga hadaba munaasabadii lagu wareejinayay lacagtan oo ay ka soo qayb galeen maamulka heer degmo ee degmada Garada ka waxbarashada cuqaal iyo waayeel xubno ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa dhamaantood waxay u mahad celiyeen gudoomiyaha shirkadda Asli Maydi Barkhad Jibriil isla markaana ay ugu baaqeen shirkadaha dhigooda in iyaguna ku soo kordhiyaan gobolka waxqabad oo dhamaantoodba ku nuuxnuuxsaday inay shirkadda Asli Maydi tahay shirkadii ugu horeysay iyadu gobolka ka soo jeeda isla markaana waxqabad la taaban karo ka muujisa minila tuulo ilaa gobol iyo degmaba iyadoo waxqabadka shirkadda Asli Maydi ay ka qabatay gobolka Sanaag uu yahay mid sida cadeeda u soo ifaya hadaba maamulaha isboortiga degmada Garada ahna gudoomiyaha xafiiska shirkadda Dahabshiil ay ku leedahay degmada Garada Maxamuud Xirsi ayaa isagu ay lacagtan shirkadda Asli Maydi u soo wakiilatay ayaa ka warbixiyay ujeedka lacagtan isla markaana tilmaamay inay haatan socdaan istabti ay shirkadda Asli Maydi iyaduna ay dhisaysay isagoo ka hadlay arrimaha waxa uu yiri xafladan waxay daaran tahay deeq lacageed oo uu soo wakiishay gudoomiyaha shirkadda Asli Maydi taas oo ugu talagalay inuu ku daboolo baahi ka jirtay degmada taas oo ahayd dhinaca waxbarashada 5 macallin oo voluntary oo ka shaqeeya dugsiga hoose dhexe 5 macallin inuu baahidooda ku daboolo oo bishiiba ugu tala galay inaanu gudoono hadaanu nahay bahda waxbarashada deeq lacageed oo uu noogu soo deeqay gudoomiyaha shirkadda Asli Maydi Barkhad Jibriil berdaweydu halka yimi baanu u cabanay inaanu hambalyeeno ducaynayaan meesha isugu nimi Barkhad laba arrimood isku darsaday arrimo saafal oo fuliyay wadanka fuliyay oo runtii mahmiyad weyn leh oo waliba oo ka baagay meel ugu jiracsanaa sida waxbarashada oo kale wuxuu kaloo ninkan uu Barkhad uu igu suntay maanta sida la sheegay lacagta oo soo bixiyay maamulaha shirkadda Asli Maydi runtii waan ka gudoonay aad waan uga mahad celinaynaa balaqaadkii uu sameeyay uu fuliyay waxyaalaha kale waxtarka uu ka qabtay waa madar sare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garada.